fadhiyaa maqaayadda ugu shida magaalada Jumeera waa u jeedin shaah oo calayso sameeyay calanka Soomaaliya ah. Assalaamu alaykum asxaabay soo dhawaada marka hore waa walaalkiin aadan ookiyaale maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimo ku saabsan dadka reer Soomaaliya ama ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya lagu xiro markii ay tagaan Hargeysa iyo Somaliland. waxaan rabaa si gooni inaan uga hadlo wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo bilaal bulshaawi oo reer Muqdisho ah oo maanta gelinkii hore lagu xiray magaalada Hargeysa. bilaal bulshaawi qofka aan garanayn sida halkan kaga muuqata waxa uu caan ka yahay bartan oo lagu magacaabo TikTok. waxa uu isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha TikTok. waxa ku xiran dad fara badan oo aad ugu xiran waxa uu ka tirsan yahay team la yiraahdo team school oo waxyaabo fani ah iyo mararka qaarna waxtar leh bulshada u soo gudbiyo. waxa uu safar ku mariyay gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo gobolada u dhow. waxaana saaki ale subaxii hore lagu xiray magaalada Hargeysa. saaxiibayaal ma rabo inaan ka hadlo arrin ku saabsan Somaliland dawlad jirta miya mise ma aha. Somaliland waa dad meel degan oo leh nidaam iyo qaanuun u degsan oo ay kula dhaqmaan dadka wadankooda soo galaya. waxa jiro dad badan oo Soomaaliyeed oo markii halkaas ay tageen lagu xiray laakiin aniga ahaan sidaan aaminsanahay waxa jiro sababo loo beegsado dadkaas. micnaheedu ma aha in qof walba oo Hargeysa tago oo aan u dhalan ama ka soo jeedo koonfurta Soomaaliya in la xiro. kaliya waxa la xiraa dadkii markaas loo arko inay carqaladeyn ama nidaamka meesha yaalo wax ka duwan ay wadaan. wiilkan Soomaaliyeed sida haddaba idin tusi doono wiilkan aniga ahaan waxaan u arkay in uu galay dambi waliba si ula kac ah taasoo micnaheedu uu yahay in uusan xushmeyn dadkii soo dhaweeyay oo ku soo dhaweeyay wadankooda ama deegaankooda. arrintaasna waa tan bal aan daawano. الله تعالى بركاته أصحابك سووا البويدة ونسووا البويدة ونسووا السلامي. وحان جوجا مجال هرجيسة هراء اللي بيقول شيء يقولي هرجيسة جوجا وحان أحمد يا مقايد وقش المجال جميرة وأوجي الدين شاه أو عليسو سمي علنك الصومالي وقوا سيدا جدا وعلنك الصومالي وأوجي الدين وحان تحت جوجا هرجيسة. sababta loo xiray waa intan. waxa laga yaabaa sharciga u degsan dadkaas inuu yahay ama sidaan aragnaba sharcigu inuu yahay calanka Soomaaliya dadkaas inaysan doonin inay kugu arkaan. haddii aad tahay muwaadin Soomaaliyeed oo jecel wadankiisa calankaagana jecel calankaaga markii aad Hargeysa tagto jeebka ku qaado ama yaan la arkin. haddaba haddii aan nahay dadka ka soo jeeda koonfurta wadanka Soomaaliya waa inaan xushmeynaa oo aan qadarinaa qawaaniinta iyo shuruucda ay degsadeen dadka walaalaha aan nahay. si walba aan u jecelnahay wadankeena waa aanan abuurin wax dhibaato ayaga u geysan kara annagana dhibaato noo geysan kara. sharcigoodu haddii uu yahay midna dhibayana waa inaan u dulqaadanaa waayo danteena ayaa na geysay meesha.